waxa weeyaan dawladda dhexe federaalka waxaan leenahay gacan bidixaynta aad ku wadaan ahlu sunna wal jamaaca oo ah qaybi oo xukun ka dhaafa waxaan leenahay ahlu sunna wal jamaaca waa la ogyahay waa dadkii baray ummadda Soomaaliyeed in la iska celin karo khawaarijta waa dadkii baray khawaarijta laftigooda in la iska celin karo muxuu ahaa waa dadkii baray saaxiibada muxuu ahaa foreign-ka ah dawladaha AMISOM iyo memberska ay kamid yihiin in la iska celin karo shabaab Soomaaliduna iska celin karaan dhulka hadda ahlu sunna wal jamaaca ay ka talisan waa dhulalka ugu nabadgelyada fiican marka loo eego xamar waxa ka dhacaya statistically 5 dhacdo ayaa ka dhaca oo al-shabaabku ay ka geystaan Soomaaliya 24 saacadood waxayna u gudbeen xataa wadamada jaarka inay nabadgelyadooda ay khalqal galiyaan ay u gudbeen al-shabaab يعني ما أهين وحنا اللي أجيها مركي دولتنا هذا جرت أي حكم كقبنيسي الشباب وحي أهين كوا كونفيوسد أو وررسن أو ديسأرية أو كالحبابي أو رعد كجري أهين ما أنت نوحي جارين سيدا ومكور بحيي الجزيرة أكتوبر اللي بدأ يكسي أمازون كوماندر فورس هي أفيان كأمازون بكورنيل علي هذا سيدا يكب بحيان الجزيرة يكسي ينبا waxay dhahan country side ka waxa xukuma al-shabaab waxaana nagu yar resource-ga waxaan u baahanaa ciidamo kale u baahanay waxa la ogyahay maanta in xataa saraakiishii amniga ee degmada Hodan iyo meelo kale oo isla Muqdisho ay ku dilayaan aad bay nabadgelyada u soo maaragtay u soo xumaatay waxaana ugu wacan ma aragtay dawladdan oo ku fashilantay muxuu ahaa xagga security ku fashilantay waxaan qabnaa in ciidamada restructure lagu sameeyo waxaan qabnaa good quality leadership ay lahaan jireen ciidamada oo